barasaabka gobolka Gabiley ayaa maanta waxa uu xilkii u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee waxbarashada gobolka Gabiley iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay waxaana ka soo qayb galay xafladda xil wareejintaas mas'uuliyiinta gobolka iyo ka degmada macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn cuqaal waxgarad dhalinyaro iyo haween aad u tiro badan waxaana ay mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ay carabka ku adkeeyeen in ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay ka gaabisay doorkii waxbarashada ee ay ku lahayd gobolka Gabiley isla markaana ay bulshada gobolku saluug baan ka muujinayeen hoos u dhaca ku yimiday hanaankii waxbarashada ee gobolka Gabiley mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa soo dhaweynaa isagana wuu duceynaa waxaan ugu duceynaa xilka culus ee uu qaaday xil maanta ka culus ma jiro waxbarashada gobolka Gabiley halkay joogtay iyo halkay iminka joogtana iskaga waramayno waxbarashada hoos u dhac weyn baa ku jira taasi waxa weeye mid inaga qarsoon maaha wasaaradda waxaanu ka rabnaa xaqii gobolka ku lahaa iskuulada la dhisay ama bulsho ha dhisato ama hay'ad ha dhisto ama dawladda hoose ha dhistay waxa weeye miisaaniyadda qaranka ilaa gobolku wax uu ku leeyahay gobolka uu lahaa waanu ka rabnaa sanadkan waxaanu ka doonaa iskuul boarding oo secondary iskuuladeeda hoose dhexe anaga isu tashadana sameysana baahida weyn u qabnaa waxa weeye iskuul secondary ardayda 57 iskuul oo hoose dhexe gobol ku yaal boqolkiiba 90 miyi ku yaalaan ardayga ka soo baxa tuuladu fursad ma haysto in odaygii saddex inan tuuladu u dhiganayay hadduu saddexdii inan mid kamida magaalada laga qaabilo labadii kale way ka saaqanayeen waxba inoo qabsan maayo baylaha ay haysataa meel walba waa taala laakiin waxa looga gudbaa caqabado walba wada jirka iyo wada tashiga bulshada degan goobtaasi ay wada leedahay marka runtii wasaaradda ahaan waxbarashada ku canaanmayno isu duwana ku canaanmayno maayana ku canaanmayno barasaad ku canaanmayno waa canaan aynu dhamaantiin wada leenahay nin walba u soo tafaxayno si aynu waxay naga khaldamay u sidanahay marka inta isla garanno ayaynu hagaajin karaynaa wax walba aswaata Abdisamad waxaan leeyahay halkii aad tagtay iyo hawshii aad soo qabatay aad baan kaaga mahadcelinaynaa in Cabdiqaadirna waxaan leeyahay hawl adag baa ku taala guntiga dhiisha isaga dhig run ahaantiina waxaan doonaynaa inaad noqoto nin isku wada bahda waxbarashada public iyo private ka wada wadtay halkan maalintii aan keenayay aan imanayay aniga bahweynta waxbarashada ee gobolka Gabiley khaasatan ciidanka xarunta ka hawlgalay ayaa dalab lahaa keenidayda halka okay waxa weeye hadalka la soo gaabiyaa la yiri wax badan kuna fogaan maayo meesha markii aan imid halkan xilkii la wareegay xasan baa wareejiyay 7 maalmood kan joogay dacwadeeda wasiirkiisa magacaabay baa loo geeyay oo qoladii keentay baa u geysay orda taana kunta sheekay gumraan abdii kunta taana oday waa gujuf baa leeyay gujuf hadii la baaro wax badan baa laga helaa waxbaan isku hayay qobtol baan isku hayay anigu mudadii aan joognay wixii aan qabanay ilaahay iyo ummadiisa way ogtay ka gobol ahaan markan taariikhdiisa hore dib ugu noqono kaalintii uu ku lahaa waxa weeyaan inuu soo saaro aqoonyahanka dalka doorkii uu ku lahaa oo runtii door lama ilaawaan ahaa maanta marka dib loogu noqdo waxa weeyaan role modelska waxa weeyaan qaranka ama institutionska kala duwan ee waxa weeyaan laga shaqeeyo kaalintii waxa weeye gobolkan inta badan waxbarashadiisa ka soo baxday ayaa waxbarashadooda iyo aqoontooda lagu majeertaa waxaan doonaa ka gobol ahaan insha allahu tacaala inaynu halkii ku noqono aynu isku tashano waxa weeyaan waxbarashadana waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin TV-ga RTN magaalada Gabiley.